bilowgii cutubka labaad. Samada iyo dhulkuna way dhammaadeen iyo waxa badan ee ku jira oo dhamba. Maalintii toddobaadna Ilaahay wuu dhameeyey shuqulladiisii uu sameeyey, oo maalintii toddobaad ayuu ka nastay shuqulkiisii uu sameeyey oo dhanba. oo Ilaah wuu barakadeeyey maalintii toddobaad, quduusna wuu ka dhigay, maxaa yeelay maalintaas Ilaah ayaa ka nastay shuqulkiisii uu sameeyey ee ahaa abuuridda oo dhan. Kuwani waa bilowgii samada iyo dhulka kolkii la abuuray iyaga. Maalintii Rabbiga Ilaah uu sameeyey dhulka iyo samada, dhirta duurkuna weli kuma ay oolin dhulka, geedaha yaryar ee duurkuna weli sooma ay bixin, waayo Rabbiga Ilaah ahu dhulka roob kuma soo dayn. Nin dhulka beeraana ma jirin, laakiin ceeryaamo baa dhulka kor uga soo bixi jirtay oo waraabin jirtay dhulka dushiisa oo dhan. Rabbiga Ilaahuna nin buu ka sameeyey ciidda dhulka, dulalka sankiisa wuxuu kaga afuufay neeftii nolosha, ninkiina wuxuu noqday naf nool. oo Rabbiga Ilaahu beer buu ka beeray xagga bari oo Ceeden, oo halkaasuuna geeyey ninkii uu sameeyey. Rabbiga Ilaahuna wuxuu dhulka ka soo bixiyey geed kasta oo indhaha u roon oo cunto ku wanaagsan. Beerta dhexdeedana wuxuu ka soo bixiyey geedkii nolosha iyo geedkii aqoonta wanaagga iyo xumaanta. Ceedanna webi baa ka baxay inuu beerta waraabiyo, halkaasuuna ku kala qaybsamay, wuxuuna noqday 4 madax. Kan koowaad magaciisu wuxuu ahaa Fiishoon, kaasu waa kan ku wareegsan dhulka Xawiila oo dhan, meeshaas oo dahab leh, oo dahabka dhulkaasi waa wanaagsan yahay, oo meeshaasuna waxay leedahay beduliyum iyo dhagaxyo onika la yidhaahdo. Webiga labaad magaciisu waa Giixoon, kaasuna waa kan ku wareegsan dhulka Kuush oo dhan. Webiga saddexaad magaciisu waa Xidiqeel, kaasuna waa kan Aashuur dhankeeda bari mara. Webiga afraadna waa Yufraad. Rabbiga Ilaahuna ninkii wuu kaxeeyey oo wuxuu geeyey beer Ceeden inuu falo oo dhowro. Rabbiga Ilaahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh, geed kasta oo beerta ku yaal waxbaad ka cuni kartaa, laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanad waxba ka cunin, waayo maalinta aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa. oo Rabbiga Ilaahu wuxuu yidhi, ma wanaagsana in ninku keligiis ahaado, waxaan u samayn doonaa mid caawisa oo ku habboon. Rabbiga Ilaahuna wuxuu ciidda ka sameeyey dugaag kasta oo duurka jooga iyo haad kasta oo hawada duula, oo iyagii wuxuu u keenay ninkii inuu arko wuxuu u bixiyo. oo wax kastoo ninku u bixiyey kasta oo nool ayaa magaciisii noqday. oo ninkii baa magacyo u bixiyey xoolaha oo dhan iyo haadda hawada iyo dugaag kasta oo duurka jooga, laakiin ninkii looma helin mid caawiso oo ku habboon. oo Rabbiga Ilaahu hurdo weyn uu ku riday ninkii, kolkaasuu gamay. kolkaasuu wuxuu ka bixiyey feedhihiisii middood, meesheediina hilib buu ku awday. oo feedhii Rabbiga Ilaahu ka bixiyey ninka ayuu naag ka sameeyey, oo wuxuu iyadii u keenay ninkii. ninkiina wuxuu yidhi, tanu hadda waa laf ka mida lafahayga iyo hilib ka mida hilibkayga, waxaa iyada loogu yeedhi doonaa naag, maxaa yeelay iyada waxaa
laga soo saaray nin sidaas daraaddeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo waxay noqonayaan isku jidh oo labadooduba way qaawanaayeen ninka iyo naagtuba mana ay xishoonaynin